Bismillahirrahmanirrahiim. Kulanti habboon daawadayaashana idilkiina meel walba aad joogtaan iyo si kastaba aad noola socotaan. Halkani waa janaalkeena Hoggaan Media oo had iyo jeer aad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay dunida, dhacdooyinka caalamka iyo arrimaha diblomaasiyadda. Waa 15 Abriil 2026 qodobada wararkan aan ku soo qaadan doono isla markaana aad ku daawan doontaan haddii Rabbi uu qadaro waxaa ka mid noqonaya Iran ayaa ku adkaysatay in ay xaq u leedahay sii wadida kobcinta uraniumka. Faahfaahinno dheeraad ah ayaan idinkaga haynaa. Dhinaca kale, Trump ayaa sheegay in dagaalka ka dhanka ah ee Iran uu dhawaan dhammaan karo xilli Mareykanku uu bilaabay xanibaad badeed oo lagu joojinayo dekedaha Iran iyo dhaqdhaqaaqa maraakiibta halkaas taagan ama ka soo baxa. Macluumaad dheeraad ah ayaan idinkaga haynaa. Geesta kale, taliyaha ugu sareeya ciidamada Iran ayaa digniin culus u diray Mareykanka isagoo sheegay in haddii la isku dayo in la xanibo maraakiibta Iran ama la saaro go'doomin badeed ay taasi kicin doonto jawaab celin adag oo degdeg ah. Qodobadaas iyo qodobadii kale aan ugu soo kordho intaan ku guda jirno tabinteena ayaad ku daawan doontaan, balse intaan u guda galin marka hore muuqaalka like noo saar. Haddii aad nagu cusub tahayna fadlan ugu soo biir oo channelka subscribe noo dheh, gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada xiga. Magacaygu waa Hashim Aadam. Ku soo dhawaada mar kale iyo tabinteena. Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Haddii aan ku bilowno, Iran waxay ku adkaysatay in ay xaq u leedahay sii wadida kobcinta uraniumka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Ismaaciil Baaqiya ayaa sheegay in Iran marnaba aan ka tanaasuli doonin xaqeeda aan la qaadan karin ee kobcinta uraniumka ah. Isagoo la hadlayay warbaahinta shir jaraa'id oo toddobaadle ah oo qabtay, Baaqiya wuxuu carabka ku adkeeyay in Iran aanay wax tanaasula ka samayn doonin xaqeeda kobcinta uraniumka, isagoo xusay in ay xaq u leedahay isticmaalka tamarta nuclear-ka uu si cad ugu qato mashruucda caalamiga ah iyo heshiiska caalamiga ah ee ka hortagga faafinta hubka nuclear-ka. Isagoo meesha ka saaraya warar iyo mala-awaal ay faafiyeen warbaahinta reer galbeedka oo ku saabsan barnaamijka kobcinta uraniumka ee Iran, ayuu sheegay in xuquuqda sharciyeysan ee Iran ay aqoonsan yihiin shuruucda caalamiga ah aysan ahayn arrin laga gorgortami karo. Afhayeenku wuxuu sidoo kale xusay in xaq Iran ay u leedahay isticmaalka tamarta nuclear-ka uu ka mid yahay xuquuqda ay ku heshay xubinnimada ay ka leedahay heshiiska NPT. Marka laga hadlayo doodaha ku saabsan heerka iyo nooca kobcinta uraniumka, Baaqiya wuxuu sheegay in arrimahaasi laga wada hadli karo, balse Iran ay tahay in ay sii wadi karto kobcinta iyada oo ku salaysa baahideeda gudaha. Isagoo beeniyay warar ay warbaahintu faafisay oo ku saabsan sheegashooyin la xiriira kobcinta uraniumka intii lagu guda jiray wadahadaladii dhawaan dhexmaray Iran iyo Mareykanka ee Pakistan. Baaqiya wuxuu sheegay in heshiis kasta uu marka hore u baahan yahay in la dedejiyo ama loo dejiyo qaab dhismeed guud oo dhammaystiran, wuxuuna tilmaamay in ilaa iyo la isku raaco shuruudaha guud, dooduhu ku saabsan faahfaahinta gaar ahaan arrimaha xasaasiga ah sida dagaal iyo nabad khuseeya Iran iyo Mareykanka ay weli yihiin kuwa waqtigooda horey u yahay. Marka wax laga weydiiyay soo jeedin uu Ruushka ka keenay in uraniumka la kobciyay ee Iran loo wareejiyo magaalada Moscow, Baaqiya wuxuu sheegay in heshiis kasta oo nuclear ah ay jiri karaan ikhtiyaaro kala duwan, wuxuuna xusay in heshiiska JCPOA lagu tijaabiyay habab gaar ah, balse dhinacyadu aysan weli mar kale gaarin heerka arrintaasi dib loogu laaban lahaa. Baaqiya wuxuu sidoo kale sheegay in Mareykanku inta badan uu muujiyay kalsooni darro iyo dhaqan aan daacad ahayn intii lagu guda jiray geedi socodka diblomaasiyadeed, taas oo keentay in xeerar iyo heshiisyo la jebiyo. Wuxuu tilmaamay in Iran ay si taxaddar leh u eegayso sida ay u socon doonaan wadahadallada hadda socda iyo go'aamada laga gaari doono. Markii la weydiiyay warar ku saabsan booqasho ay wafdi Pakistan ahi ku imaanayaan Iran, doorka Pakistan ee dadaalada nabadeed ee faahfaahinta wadahadaladii dhawaan ka dhacay Islamabad, Baaqiya wuxuu sheegay in qof caqli leh uusan ku dhaqaaqin xanaaq iyo carro marka xaalad adag la wajaho. Wuxuu intaasi ku daray in isdhaafsiga fariimaha uu weli socdo, isagoo sheegay in tan iyo axadii fariimo badan lagu kala gudbiyay dhexdhexaadinta Pakistan.
wuxuu sidoo kale xusay in Iiraan ay maanta u badan tahay in ay martigelin doonto wafdi ka socda Pakistan si loo sii wado wadahadaladii ka bilowda Islaamabad, halkaas oo labada dhinac ay si faahfaahsan uga doodi doonaan aragtiyadooda. isagoo ka hadlayay suurtagalnimada in la kordhiyo xabad joojinta iyo wadahadalada socda. Baaqiya wuxuu tilmaamay in arrintu ay adag tahay marka la macaamilayo dhinaca lagu yaqaano in marar badan bedelo mowqifkiisa. wuxuuna ka baaqsaday in uu bixiyo faahfaahin dheeraad ah, isagoo sheegay in doodahaasi ay ku xiran yihiin isla markaana loo baahan yahay in la arko sida ay u socdaan, isagoo gabi ahaanba meesha ka saaray ama ka saaraya mala awaalka ku saabsan kordhinta xabad joojinta. Baaqiya wuxuu sheegay in wadahadaladu weli sii socdaan iyadoo Pakistanna ay dhexdhexaadinayso. wuxuu carabka ku adkeeyay in la qiimeynayo sida ay uga go'an tahay Mareykanka arrintani, isagoo tilmaamay in Washington ay tahay cidda looga baahan yahay in ay muujiso dhab u go'naanta iyo daacadnimada ay ku leedahay wadahadaladan. Haddii aan eegno qodobkan xiga, Trump ayaa sheegay in dagaalka Iiraan uu dhammaan karo dhowaan, iyadoo Mareykanku uu xanibaad saaray dekedaha Iiraan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dadaalka Iiraan uu dhowaan soo afjarmi karo, isagoo dunida u sheegay in ay sugto 2 maalmood oo yaab leh, xilli ciidamada Mareykanku ay xanibaad badeed ku soo rogeen dekedaha Iiraan, taas oo sababtay in maraakiibtu ka baxaysay dekedaha dalkaasi dib loo celiyo, iyadoo la filayo in mas'uuliyiin Mareykan iyo Iiraaniyiin ay dib ugu laabtaan Pakistan si wadahadalo cusub u yeeshaan. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance oo hogaaminayay wafdiga Mareykanka wadahadaladii Axaddii ku dhammaaday natiijo la'aan ayaa sheegay in uu rajo wanaagsan ka qabo halka ay xaaladdu marayso. waxaan filayaa in aad arki doontaan 2 maalmood aad u yaab badan oo soo socda, ayuu Trump u sheegay wariyaha ABC News ee Jonathan Karl, sida wariyuhu uu ku qoray bartiisa X. Trump wuxuu sidoo kale sheegay inuusan arkin in ay laga maarmaan tahay in la kordhiyo xabad joojin 2 toddobaad ah ee ku eg toddobaadka soo socda. waxaan u maleynayaa in arrintani si dhaqsi ah ku dhammaan karto waqti dhow, way soo afjarmi doontaa, ayuu Trump ku sheegay wareysi kale oo Talaadadii la duubay oo laga sii daayay barnaamijka Morning with Maria. barnaamijka Mornings with Maria ee telefishinka Fox Business Network. mas'uuliyiin ka socda Pakistan, Iiraan iyo qaar ka mid ah dowladaha Khaliijka ayaa sidoo kale sheegay in kooxaha wadahadalada ee Mareykanka iyo Iiraan ay mar kale ku laaban karaan magaalada Islaamabad dabayaaqada toddobaadkan. wasiirka arrimaha dibadda Iiraan ayaa sheegay in ay u badan tahay in wafdi Pakistan uu yimaado Iiraan si uu u gudbiyo fariimo ka imaanaya Washington. wadahadaladii dhacay dhammaadkii toddobaadkii hore ayaa ku burburay heshiis la'aan si loo soo afjaro dagaalka uu Trump bilaabay, isagoo garab ka helaya Israa'iil 28 Febraayo. dagaalkaas wuxuu sababay in Iiraan ay weerarto ama ay weerar ku qaado qaar ka mid ah dariskeeda Khaliijka, isla markaana uu mar kale kiciyo dagaal kale oo barbar socda u dhaxeeya Israa'iil iyo ururka Xisbullah ee Lubnaan oo Iiraan ay taageerto. rajada uu Trump muujiyay ayaa kor u qaaday suuqyada saamiyada caalamka, kuwaas oo ku dhawaaday heerkii ugu sareeya. ugu dambeyntiina taliyaha sare ee Iiraan ayaa sheegay in xanibaadda badda ay dhalin doonto jawaab celin. taliyaha taliska dhexe ee ciidamada Iiraan ee Khatam al-Anbiya ayaa uga digay Mareykanka in xanibaadda badda ee lagu soo rogay Iiraan ay tahay jebinta heshiiska xabad joojinta, wuxuuna sheegay in haddii xanibaaddaasi sii socoto, Iiraan ay joojin doonto dhammaan howlaha dhoofin iyo soo dejin ee ka socda gacanka Faris ee badda Cumaan iyo badda Cas. haddii Mareykanka oo gardarro iyo argagixiso ku dhaqmaya uu sii wado tallaabadaasi sharci darrada ah ee xanibaadda badda ee gobolka, isla markaana uu amni darro ku abuuro maraakiibta ganacsiga iyo kuwa shidaalka ee qaada ee Iiraan, tallaabadaasi Mareykanku waxay noqon doontaa jebinta xabad joojinta. ciidamada xoogga leh ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan ma ogolaan doonaan in wax dhoofin ama soo dejin ah ay ka sii socdaan gobolka gacanka Faris, badda Cumaan iyo badda Cas, ayuu yiri Major General Ali Cabdullaahi hadal uu soo saaray. taliyuhu wuxuu sidoo kale carabka ku adkeeyay in Iiraan ay qaadi doonto tallaabooyin adag oo lagu difaacayo madaxbannaanideeda qaran iyo danaha dalkeeda. haddii aad halkan nala soo gaartay, waan kaaga mahadcelinaynaa la socoshada iyo daawashada muuqaalkayaga. fadlan muuqaalka la wadaag asxaabtaada si meel dheer uu noogu gaaro, adiguna aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay.